dhawaad 15,000 oo qoys oo ka mid ah dadka abaartu ay saameysay ee ku nool deegaano ka kala tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa loo qaybiyay deeq isugu jirta lacag iyo raashin oo iska soo aruuriyeen qurba joogta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda magaalada Cadaado iyo ganacsatada deegaanka ah. deeqda gurmadka ayaa loo qaybiyay qoysaska abaartu ay saameysay kuwooda ugu liita. Ismaan Macalin Xasan Geelle iyo Sahro Xasan Mataan oo ka mid ah qurba joogta deegaanka ee loo soo wakiishay qaybinta deeqda lacageed ee loogu talagalay in lagu caawiyo dadka tabaaleysan ee abaartu saameysay ayaa faahfaahin ka bixiyay cadadkeeda iyo sida ay ugu qaybiyeen qoysaska mudan, iyagoona sheegay in haatan abaartu ay tahay mid aad u daran. markii la isku daro 60,000 oo banaanka laga keenay iyo ilaa 30 kale oo maaragtay ka timid laga aruuriyay dadka maaragtay Cadaado dhexdeeda ah. lacagtaas waxaan u kala qaybinay Mudug iyo Galgaduud ama bariga iyo Qoraxsinta. lacagtaasi waxa loogu maaragtay gurmada dadka aadka u jilicsan oo aadka u dhibaataysan meeshaas degan. bariga waxa la gaarsiiyay in ka badan 60 tuulo ayaa waxa la gaarsiiyay raashin iyo biyo. raashinkaas ugu jira sonkor iyo saliid iyo bur maaragtay iyo sidoo kale biyo ayaa loo shubay barkad kasta. Qoraxsinna sidoo kale 70 maaragtay afar u qaybinay. afartaas maaragtay qaybood oo kala ah Duculey iyo meesha la yiraahdo Baxdo, Godinlaba iyo Cadaado. Baxdo iyo Godinlaba iyo Duculey waxaan u dhiibnay lacagta saamiga ay ku lahaayeen. dadkaas runtii xaaladda aan ugu tagnay markaan wax siinayna duruufta ay ku jiraan waxay duruuf aad u liidata. koox waxaan ugu tagnay maaragtay ilmahoodii xoolihii ka baaba'een 500 neef cidii lahayd oo aysan u harin 70 ama 100 oo aysan u harin 100kaasna 30 ama 50 kamid ay sii liitaan oo xerada looga kala tagay. waxaan ugu tagnay kuwa arigii iyo dadkii waxay siiyaan intay waayeen geedo gubaa jeerin la yiraahdo. jeerinkaas ay gubaan qodxaha ka daadinayaan si ay xoolihii u siiyaan. qiici ka soo baxay oo ayaga indha tiray maaragtay beediina waa dareemi kartaan dhibka u geysto oo kuwa badan oo indhala hadda ay magaalada joogaan lagu daaweynayo. Sarah Ahmed, I come from New Zealand. I was born in Somalia. I would like to thank you on behalf of Cadaado people, in general Somali people. Thank you very much for your generosity. I've heard the good job you're doing here and in London, right? So I would like to thank you personally on behalf of our community here. So thank you again. cali sheekh axmed kaahiye gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha deegaanka ayaa sheegay in weli ay jirto baahi loo baahan yahay in laga jawaabo. hadda marka waxa loo baahan yahay culaysku intaas kuma koobna. dadka baahidaas alla dabooli kara. dadka walaalaha oo soo dadaalay baahidii intaa kuma koobna. wixii lala qaban karo dadkaas maanta waa maalinkii ay ugu darnaayeen culeysyadu iyo kuleylka iyo xoolaha dhibaatadoodu. waxaan rabnaa sidii wax loogu qaban karo inay u soo qabtaan. waxaa ka faa'iideystay qiyaastii waxaan isleenahay annaga 15,000 oo qoys. maxamed maxamuud awaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado.